yahay mid u cayilnay yahay mid caato u yahay baa midna u caday midna u madow yahay bay caqliyana sidoo kale u kala tagsan yihiin marka halkaan ku faahfaahin doonaa waxaan maraynaa qodobka saddexaad oo ku saabsanaa furuuq alfardiya waxyaalaha lagu garto furuqa u dhexeeya ardada iyo sida ay tahay in loola macaamilo macallimiinta u daaweeyaan sheekhu wuxuu leeyahay hunaaka ciddatu cawaamil tu'athiru fi furuuq alfardiya bayna adulaab waxaa jira dhowr shay ama waxyaalo saamayn ku leh furuuq alfardiya iyo kala duwanaanshaha ardada dhexdooda yanbaqii an tu'khada bicayn alictibaar taasoo ay tahay in lagu xisaabtamo minhaa waxaa ka mid ah alcaamilu zamaniyi da'day kala jiraan lianna خبرات الطفل وقدراته العقلية تزداد مع النمو أرجع خبرات ديسا عقل ديسا ولا قرا كورتان جركيسا ولا صعانية وتزداد الفروق الفردية بين الطلاب المتفاوتين في العمر أرددا أو كلا تكسن حق عمري أنا وبطن بقول حية شغله مقولي هذا ينبغي أن يؤخذ العمر بعين الاعتبار في هذا الردد وإن لو حساب تمع عمر يداد أرض وجره في المجموعات التي يقسم إليها الطلاب هاتو جروبات الله قيبين يوم أرضا في الحفظ والمراجعة 10 أسبوع للسنة المراجعة دي أي أسبوع لك بحيان على خصوص عينين إذا الله أسبوع لفيرنا يو waxaa loogu xisaabinayaa oo loogu talagelayaa mid walba da'da uu jiro iyo fi nisaab alladhi yudlabu min at-talib ardayga qismiga laga dalbayo fi al-hifd wal muraaja'a maalinka casharka la qaadanayo oo soo xifdinayo ikii muraajacada labadaba macnuhu wuxuu marka cunug 5 jira ama 6 jira ama 7 jira ma 8 jira saa jirsan mid 10 jira soo 10 ma qaada karaan waa laga yaabaa mararka qaarkood mid 10 jira ama 5 jira inuu mid 10 jira ka hormaro laakiin waa saas doono waxyaalo aan badnayn mararka qaar waxaa dhacda in hooyo ilmuhu keenay ku leedahay cunugii 4 jira ay quraanka u rabaa hee wuu hadalay hadda wuu hadalay quraan laguma baro ilmuhu 4 sano jira 5 jira bas ka cayaar sidaa daraadeed ama uu kaleena maya xalimo wiilkeeda oo 5 sano jiray quraan shacab u dhameeyay hadda wiilkii xalimo wiilkii faadwa waay mararka qaarkood inay runtaana waa laga yaabaa inay yarafta lagu soo caawiyo been loo sheego waa laga yaabaa marka aniga waxa la keenay oo la soo sheegay in la yiri cunug 3 jira quraanka dhameeyo hooyadu quraanka tabka bartay hal ay keenay ku iri wala ay amus mararka qaarkood lagu hoos gelinaya sidii hore ugu tuuro marka waxyaalaha aan dhicin weeye mararka qaarkood dhacana oo loo yaqaan weeyaan waxyaalaha shaadka oo halkii labada la xukma leh waxba lagama soo qaado marka ardayga yar iyo kaweyn waxa u dhaxeeya maskaxiyan iyo caqliyan iyo jir ahaan iyo awood ahaan waxba u dhaxeeya waxa la yaqaan inuu nus saac quraanka akhri karo kana uu 10 daqiiqo u akhriyaba daalayo waana ku xisabtana marka shuu leeyahay ayadoo marka la siinayo subaca marka laga rabo dee la koran yahay in oo casharka xifdiga loo diro marka subac ay galayaan waa in lagu xisaabtamo da ahaan sidaa daraadeedna wuxuu leeyahay in gurubo loo qaybsho gurub kastana waa in laga dhiga isku da laga dhiga hadda wadamada horumarka sheegto oo iskuuladooda hormariyo oo ka fakara ilmaha oo dhaqaalaha ku baxsha tusaalaan say UK Ingiriis oo kaleeto hadda ilma iskuul geysanayso waa cunug baad ka keensatay Afrika 25 jir baan keenay Afrika tusaale ahaan ma la dhahayo waa 0 oo 25 jirkan wax ma yaqaanaa ilmaha yar lagu darsay Kenya ka dhacda maya 25 jirkan waxa lagu darayaa 25 jiro 10 sano soo dhiganayay hadda ABC ma yaqaan war maxaa saa u yeesheen waxay ku leeyihiin kuwa yararka madax ku qabsanaya ama uu dili doonaa ama bay soo cabo hal tuugsiga nafsu ka qabanaya marka kuwaas oo weyn kala la fariisto hadda wax ma yaqaanee waxa loo diyaarinayaa macallin xogaa soo caawiya
laakiin lagama yaabo in da isaga hoos marsho taasi waa xagga marka laga fiirinayo da ahaan oo ilmaha iyo loo dareenayo guruubaha kaleeto waxaan ku leeyahay asaga haddii tiisa loo fiirshana waa sidoo kaleo haddaa ilmo yar ku darto niyaddaa ka jabaysa oo ciyaal baa lagu dhex daro qof waa niyad jabaya marka ase niyaddaa loo dhisaya kuwa yarna waa la ilaalinaya sida maskaxa uga qabsan marka labada dhinacba waa in la ilaashaa hal dhinac in la ilaasho macsan waa in loo daneeyo tiisa la fiirsho haddaa ilmaha dhex fadhiiso nin dheera muruga oo shanjiro dhex fadhiiso ceeb oortaa ka cararaysaba oo bas leeyahay haddaa lagu horeeyay aad meel baa laga dhacay ومن العوامل المؤثرة في الفروق الفردية وحكمها التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أنه وحصة طبعا مستوى التعقيد في موضوع المدروس سيدو أرجي هاي أما أجل سي هاي عشان الله قادر هدي واحد هدي النحوي يدير كل مع يارس ويقول شيء مثلا حفظ فربانيو والله فيرنا وأنا كل حساب طبعا ومستوى الصعوبة في الصورة والأجزاء والجزء juuska maanta la akhriyo soo la akhrinayo haday aad taraw inaan ku xisaabtamo ila macallinka asaga laga rabaa ardayga inuu wax u qalmasiyo dan suurad sabax bir barayo sabax bir wala yaqaan soo xadiid dan sabax bir barayo hadii la kuran yahay suuratu a'la la mid ah iyo soo daariqay hadii badan marka inaan ka fakara ومدى وجود التشابه اللفظي فيه sidoo kale darsiga waa inaad la fiishaa samiima leeyahay haddaan arraxmaan barayo shan layn baan siinaya fabiayi alaa'i mise wujud ama war mursalaat weli yowmada lbakadibin inaad sami ku jirtaan ayaa tixgelishaa inaad soo sami fara badan baa ku jirta macallimiinta qaarkood baa ardada la raasasay u ridaan ama ugu ciqaabaan ee dhahaan suuradda arraxmaan walmudafin walmursalaat arday og yahay inuusan ka bixi karin buu horta u gelinaya marka haddaad dad ka hor weydiinayso imtixaanka daacad yahay maad tiraahda weli yaasha akhriya washamsi waduxaaha ay waduxa saan ma dirti marka in la fiirsada maaha laakiin qur-aanka in la barto waa lagu qasban yahay oo mid suurad laga boodaya ma jirte waxaan ka wadaa suuradaha culus waa u yaryaraynayna suuradaha culus waa loo yaryaraynay ma lagu adkaynay ma laga dabageynay مشغول ليه هاي درسوا قضية هاي صورو صميل ليهين جزء علص ويا هاي وكيف القرآن وكلا قضية هاي حاجة آخرنتا يو حاجة حفظك صورو سهلا ما جري صورو حرايت هاي إيه وقت بدنا لقيش فتشابه اللفظ على القرآن الصميل على سؤال فكلما كان موضوع دراسة معقدة ما كسوي هاي درس على قاعدة يمر عضق حتى معرض كاس تطبع فوق صدوح حتى مرة كده ما يتوضي يعرفنا يعني imtixaanka ardayda ku dhibaan waxay soo diyaan imtixaan dib badan oo baada loo qeeyo ma fiicna mar kasta oo la joogo goobaha waxbarashada ilaa makaanu ciqaab mahane waa makaanu daraasa tadriis marka muallimka lagama rabo inuu waxba adkeeyo mualliman muyassiran muallim wax fuudeeya xagga hadalka xagga jawaabta حاجه درس بixinta حاجه subaca حاجه soo dhaweynta waa inaad tahay sahlan samxan raxima allah imra'an samxan leedahay mid oo jajaban waxa uu sheegay oo faan sana darsi adigu soo noqon marka macnaha hado yaa loo fasin quraanka adagoo laga taagay ma quraanku ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay waa fuday quraan waa fuday quraan laakiin waxaan ognahay in ay soo suurada isku sahal ahayn marka la akhrinayo ay samido qaar kala badan sida daradeed ardayga hadduu ka soo baxay suuratu nabac ama suuratu ama nabac ka soo baxay hal bej markuu mursalaad marayo bej kan bixi karo u yareynayna waxay haafar ka baxaysaa si uu u dareemin marka ardayga ana aqaan si uu u dareemin niyadsan waxa leeyahay suuradan baan rabaa si fiican u barato waa kuwa adag tahay ma dhahayn adag kuwa adag tahay caalina bej baadna hoosan maya waxaan leenahay inaa waxa rabaa si fiican uga baxaydo mar baad ku geli tartan ku geli doontaa insha Allah niyadda u dhisaynaa waxaan waxaan samaynaynaa تبهيرات يا عذر دارو عقل جاه أو أرضي ضاع حتى أرضي كريه سو أرضي جروب في الوضع لا سعود كريم ما حن أصلا تبهيرات يا سببين أو عقل جاه أنا جارد وأنا أرض وأنا شارع تعالى شو أخش بيش أخش مركز الموضوع أرجع هي ولا الشيخ وفيه نوع من الصعوبة كجرته تتسع الفجوة في الفروق الفردية وحب بلارنا يا بدنا
ardayda in kala tagaan oo ardaydaas shantii arday gruupka ahayd shalay jus bay ku subciyeen maanta mid baan xiis baa ku subci karin shantii afartii kalena jus bay qaateen midkaas marka soo haray cay iyo dami iyo wax matari ma dhahayno maya ama waa la akrinaynaa oo ugu celinaynaa waxaan firinaynaa farqa u dhexeeya asaga nimanka maanta ka baxsaday haddii wax sahlan la soo qaban kara ay yihiin waan ka daba geenaynaa haddii kaletana gruubkana ku dari doonaa annagoo u sheegayna inuu haddii aan la kuran yahay nimankaas waxa looga reeba ay tahay isaga in si gaar ah quraan hoose loola diyaarsho in ardadan kaleeto ay uga sahlan yihiin waqtigoodu waxbaan keenaynaa si aan loo dareensiinin niyad jab qalbiga taa la ilaalinaya doqon yaho aduu kuwa la socodayso ka soo hartay kuwaas aan kugu darayo wax matara tahayo way ceebas ma jirto taas markastoo darsi culus iyo xushuu leeyahay wax sii balaaran doona farqi arda u dhexeeya بينما تقل أي يرانيس في الموضوعات بالصورة سهلة قرآنك سهلا أو حفظيا عدو سهلين هي يسرى يرد ما لا دريمون لي هي فروق فردية وعرضي وصوى يعيا معها الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر مركا قفل بو سهل أنت الله أكبر ضد كقارقون وحلا يا إن معلومة يرد يكون شيء وحلا الله أكبر من سورة الناس إلى الضحى الله أكبر هل لو بحشي هورك توين سعادة ما سبحانه يو مسؤول ما طبعا الله أكبر على الشراء بدي صوع صغير ما والله صبيعة ما هنا صوع صغير فلهذا وحلي الشيخ أن يراعي المعلمون وين عثر العريان ذلك في الصور والأحزاب التي فيها صعوبات من نوع ما سورة يقول جزوس يكون شرين حوالي عضيه وإن يكون تلقرانه بعين الاعتبار كو فيرشان يعني كو حساب تمام واي فروق فرديات فيرشان رابع أفراد وحلية من المبادئ الأساسية في مراعاة الفروق الفردية وحكمها رماية هاي إلى الشو أساسي مهم أن التباين بين الناس في الفروق الفردية كمي وليس نوعيا وحلية هاي كدونا شها يكلا تقنا شها يكلا بدلنا شها ضدك وفروق فردية لو يقانو كمي وحاجة ترى وليس نوعيا نوع محال هذا مركب ومعنى ذلك أصبحت هاي أنه ليس هناك مجرد أشخاص ضد أذكياء عقل لو يرى يو أشخاص يخلون من الذكاء كود عقل كم مرمى مجران تماما سنرى وصفر أنا وبيان ويحكي صور ما وإنما الذكاء موجود في الجنس البشري عامة ذكاء عن عقل ما كتشره هاي ولكنهم يتفاوتون ويتسيهن في نسبة الذكاء حاجة عقلي بيك لا سريان ما هني متك صار نوعا ما عقلها لسي بحوجها هي والناس في هذا على 4 أصناف تدخلون ما كان الله يا حاجة عقلها أفر جروب أما أفر كوحود بالو الشيء أفر كوحود بالو الشيء هي اللي هي صنف يتميزون بقدرات عقلية عالية هو وحي كو عام بحنا كنت ناميهن عقلي سرين وهاي الدكتور ما يزور شيء إن دكتور عمر بن خليل يسي إنه ده هاي أرض ما كجبها صوت المائدة مية هل فدي وهذا هو عصبي وهرجين هذا عشان بوقعتوش هذا علاه بلا بوقعته ما يقول لي ضدك أنا ضد يوم فرقت له نوع صار هذا بقدرات عقلية عالية هيسان ويصفون وحلقوت ما بأنهم يجوا متفوقون عقليا ان يكونوا على سريين فائقين وهم غلة وهي ضجر ويان كواس عقلي بمان ويريهن والصنف المتوسط الذكاء هو نبغى كواده دحاد وكواس هاي انا هين كل ولا هين وهم سواد الاعظم وانت وسيل لو بدن yahay wadadka aad taqaano dan weeyaan ilaa har iyo laba isticmaane وأنا أدخل جنون هذا صار لحد كا فعملوا صار لحد كيه دت نوع ذاك وصل شغل ده دت فاري هاي قاعد هذا وحيالا عدو أعلن هدي لو سي عمره أنا صار كده مصمم ديار بيبينا يا هم ديار بتري شمير هم بيبي كرو ما أعتبر